حديثك أنس نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه من كانت الآخرة همه قفكي آخره همجيس أي نقطة هبين يوم مالو وحو جعليه آخره وحو كفكرا قبرك سراتك لكلنك ربي جنة ينار فريق في الجنة وفريق في السعير همجيس ودنب وحو يهي آخره نبينا وحو يري جعل الله غناءه في قلبه الله أكبر قلبك وحا لو دجينيا دقسي تاجر واي قلبك تاجر كيهي الدنيا دان هو اسكي جوغا لكن قلبك وحو جرا لكلنك ربي قيامها حالك سو نغنيا انتاسو كفكريا نبينا عليه الصلاة والسلام عليه وجمع له شمله أمورس waa loo oofinaya qofkii hamigiis aakhir ka dhigto hadduu u baahdo meel inuu wax ka soo sameeyo haddii maanta uu rabo inuu macnaha oo guur uu rabo inuu xajka uu rabo wax kasto waa loo fududeynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam وأتت الدنيا وهي راغمة الدنيا waxay u imaanayaan iyadoo sanka ka duran sababtoo hamigiisa aakhire ah marka waxa la rabaa hamigeena iyo fakarkeena iyo dadaalkeena inuu noqdo aakhiro كان كلام عن فيرينو ومن كانت الدنيا همه قفكي همجيس كدغتو الدنيا هبين يوم مال الدنيا دبتاغي yahay جعل الله فقره بين عينيه كاسن waxa waay indhaha waxa loo saaraya faqiirnimo markii qalbiga laga geliyo iyo markii indhaha laga saaro indhaha daran جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله اموريسna waa la daadinaya wax u hagaagay malaha dukaanu meeshan ka furuna tuugo waa laga gubaya business uu galaya uu khasaaraya guru raba culaysa laga saaraya wax kasto adduunkan hool yar uu raba subaxdii haduu aaw imaana wax uu hagaagay malaha illa hamigiisa ah waxa waaye adduunyo ka dhigtay walam yatihi min ad-dunya illa ma qadara lahu li nabiga alayhi salaam adduunyo wixii looga tala galay markii caloosh hooyadiis ku jiri way wax uu ka badanay malaha ama xaaran ku raadi ama suxun u raadi wixii lagu tala galay mooy wax kale kama badin karto marka xadiidka maxaan ka qaadanaynaa ma dhahay adduunyada laga tago ila adduunyada waa la imaado adduunyada waxa waaye inaad wax kasbatin cidiilaysa malaha wala tansa nasiibaka min ad-dunya laakiin waxa la rabaa gacantaada midig ku qabo aakhiro tan badaxna adduunyo ku qabo adduunyadana waxa waaye ilmaha u adeego u xamaalo hooshada wado laakiin fakarkaaga iyo dadaalkaaga iyo juhdigaaga iyo hamigaaga iyo habeenka markaa seexanaysa ka fikir aakhiro ka fikir qabriga ka annamaado aaw lagu soo aasay qabriga lagu soo aasay maxaa diyaar ku ah naftaa kaliya marka meelahan aad timaadid oo iska fadhiisatid naftaada la sheekayso war aaw nafta baa ka baxday imisa qof oo maanta oo dhan waxa hebel waa dhantii lagu leeyahay adii hadda maanta oo fiirsanaay oo maanta adduunyadan joogto ka soo qaad waaba dhimatay isweydi adiyo rabbigaaga xiriirka soo yahay war qabrigaas oo aaw hadii lagu geliyo war yaa wehel ku ah war amalkaaga soo yahay waxa la rabaa naftaada la sheekayso hamigaaga waxa la rabaa inuu aakhir u noqdo marka ikhwaani waxa la rabaa in la dadaalo adduunyadan intaad joogtid hal shay aan kula dardaarmaya diintaada ilaalso adoo diin laawa ah ilaahay agtiisa tagin ilaahay quraanku wuxuu ku leeyahay إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا قفكي إماضه أصو مجرم أو الدين لا وقع فإن له لا يموت فيها ولا يحيا منا نولانا معناها وحو قلايا جهنم دين تاذا مركا إلى الصو بلانكي مركي لو صو بحي يا لغو دوف سالين دين تاذا كومنتد واد أغديتا وحان كسو حيرا يا قصدي oo saxaabada oo Jaafar bin Abi Talib radiyallahu anhu soo markii oo la soo ardul Xabash loo soo hijrooday way soo baxeen waxay u imaadeen Malikul Najaash oo joogo ardul Xabash saxaabadii ilaa intay ay joogeen wadanka ardul Xabasha diintay faafinayaan diintooda ay ku dhaganaayeen ballankii oo boqorka oo iyaga ay u tageen ay diinta u bandhigeen waxay soo laabteen sanadkii toddobaad Khaybar nabiga markuu oo furanay ay soo noqdeen ayaga oo aan isbedelin marka diinta hal ilaaliyo diintaada ilaalso dantaada ku jirta وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.